anaga wili ku guda jirna bixinta deeqda yareedana soo gaartay ayaa waxaan jeclaystay qaarkii ay gaartay ama dadka gaartay ay gaartay deeqda yareeday aan bixinay inaan xoogaa waraysi aan ka qaadno sidii jabigooda uu yahayna ay wax nooga sheegaan dadkani waxay ka soo barakaceen gobolada Baay iyo Boqol waana dadka keentay inay maxay ka soo barakacay gaajadii ka dhacday dalka Soomaaliya ka dhacday wilina ku dhibaataysan ku dhex jira baahida dhexdeeda wili waxayna joogaan meel banaan ah maryahoodii ay wateen ee cawradu ku asturanayeen ayna cawshada ka sameysteen guriga ka dhigteen waxaana waraysi ka qaadi doonaa qaar ka mid ah marka qaarkaas oo maanta aan gaarsiinay deeqda walaal magacaaga ku bilow dhibaatadaadana ka hadal anoo faamay dawli raw oo diin soorka qooni sadahsan abaarna gadli oo iyalka ogoon wiil jirin ila jara oo shan ologwada ogoon jaloor bariis lana si aksariir sad qofna neesi sadidi qofna neesi lang idli hakila ni deeras yasas karkaan min kuweeldan surfiin haysana magaar iyo ololay aamu hayna oo dabkeen saaran biyooshe waraabo hayna guri kale aan haysana aabana ning jarna awlaad ogoon hooy aad dhimatay ki aasho dhimaday dhibaatadaas oo hanuwati oo baydhow iyo kan dhantay buur halugayni baabur iyo hana saarti inta nishaanti hungurni hay madaas ku baad maalantu loorka bariis sadda qofna niisi sadii qof shamber oo ay tahay goosado hayna shamber hooba aan hadana gaajidi iyo hungurigi oo nahay magaar iyo oo ay tahay arday oo hata tuugni bagan Allah erni kun hanasi kilayla kooy hayna oo dhulkun sida ay jiifado hayna karan haysana jilbaab islaamna silay haysana qofradaan feedinta walba aan haysana buushki jarna qurbar iyo hayna oo jelmad aan haysana dhar aan haysana roobna dhoohay awlaadan hunguri dhamahay oo jirada noo socota oo reedna wal aan ka nagdaan lahayn heelagi hanoo dhamaadeen beer beslayn jarta aabina aan jarna yaan dhibaatadaasana hayta in hadda sool hoob lindeerni dhahadun bimay ka fado hayna inuu raashin nasi surfiina nasi dharna nasi oo ilmoogana neen noolayo oo walaalka saasahan dhaxgalnay saasan baahanoona haddaan oo dib wax ku weydiiyo awaartan aan ku jirna hadeer deeqdan lagu soo gaarsiiyay ilaa intee maalmood ay ku gaarsiin kartaa 5 maalmood bas ku gaarsiin kara 5 maalmood yak hay koona 5 maalmood tumun ilog oo ogoon ki aawsho dad furi iyo ki aadiyo dhimatay ki aabisho dhimatay haysan aan ilog ogoon haysan wiil jirin waa ii jara dhibaatada haysan diisoor yaa ka karni saddesan oo abaar ni sooti bisha soo socoto qaban qaawadiina maxay tahay maadaama abaartii aad ka soo idin soo waday halkaan idin keentay bisha soo maxaad ku tashanaysaa soo milaada soo manna soo laag oo ololay oo muslimka ka toogani iyo ana wali anjeere ka shaqaga muslimka ka toogani yaa ku soo ilaahay indisha in Soomaal lahayni baahadaas ka soo lahayni walaalaha ku dhageysanaya maxaad ka codsan lahayd marka adoo ka ambaqaadaya baahida idin hayso dhibaatada idin hayso raashin aan baahna maxaa kala noloshiina maxaa qabi ka maadaama gurihiini iyo dhulkii aad deganeedeen ka soo barakaceen gaajada uga soo baxdeen oo hadeer aad joogtaan meel cidla ah dadna idaan ka aqoonin maxay eeday rajaynaysaa marka dadkani ku qabtaan walba marajana lam kiilo oo islaamka ka garamni Allah arnina nasiyaayo aamani yo hoobna dhan Allah anjeerada iyo na intooda dhibaatadaas ka fadhina istilooday maxaad codsan lahaydeen inaad heshid nolol maxaad codsan lahaydeen guriyaha oo maxaa ka dhiman bacamiya mise maxaa guriyaalka baa in dhimanyi safiin dhimanyi aragtay jiirgaa maxaasada alaab aan guriga aaman maxaasan hoor oo una baadi kala qooni oo shaafa ee walka aamahayna saxan in dhiman daraan haysan waa maasanta walaal hooyo aadna dhibaatada noo soo koob wax nooga sheeg dhibaatada tan ariitun sheegdilaa una sadasana abaaraynayso abaarti horta heelo reed ma noo jiraan reed noo jiraan mahaysan baa mahaysan naftay shalay oo ku jirdi shalay oo afkooda ka hergali gagalomadaan galooga ka noolni ana ma sayran hasihan ololay hasi luto inta hasiyo galoonkaas inta noo gooyo hunguruna nasiyo nan ogaado alxamdulillah walaalaha ninshan wallahi ninsheegan kortooda ugaaro ee qafalaan qaxootigan ka soo barakacay gobolada Baay iyo Boqol iyo dhulka u dhaxeeya diinsoor ka kor baadiyaha dadkani waxay isugu yimaadeen meelaha ay filayaan inay ka heli karaan gargaar ama noloshooda ay ku dhisan karaan
jamciyadda Naareyn ee khayriga ama Naareyn Relief Organization waxay mar kastaba u taagan tahay inay soo bandhigto baahida dadka dhibaataysan waxaana jecelnahay hadduu Ilaahay yiraahdo dhibaatadana si taas ah loo fiiriyo garab lagu siiyo dadkani inay helaan nolosha dhabta ah